ciidamada laanta socdaalka ee gobolkani Awdal ayaa maanta waxa ay ka masaafuriyeen gobolkani dadka Oromada ee asal ahaan ka soo jeeda dalka Itoobiya kuwaas oo sanadihii ugu dambeeyay ku soo qulqulayay guud ahaanba Somaliland waxa ayna dadkani iskugu jiraan kuwa xanuuno kala duwan qaba halka qaar kalena ay yihiin kuwa ka dawarsada magaaladani Boorame ee xarunta gobolka Awdal dhanka kale waxa warbaahinta maanta la hadlay taliyaha laanta socdaalka ee gobolka Awdal Axmed Ismaaciil Ibrahim kaas oo carabka ku adkeeyay in dadkaasi ay yihiin kuwa qaba xanuuno halis ku ah bulshada waxa uu taliyuhu intaas ku daray inay ujeedadoodu tahay in ay dadka badbaadiyaan waxa uu yiri dadka halka ku arkaysan waxay iskugu jiraan dad xanuunsanaya iyo dadkii dawarsanay waxaan fulinayna amarka taliyaha waxa soo oo bariyahanba hawlgal laga waday gobolada dadka oo dhan marka sida daraaddeed xanuunadaas markii la ogaaday inay dad Itoobiya ka yimid ay xanuuno halis ah qabaan xanuunadaas ay ka bihiin sida juusan kan shirkad boogooyay iyo kuwa kale halis ah istaadarteedii oo taa laga duulayo wuxuu taliyaha waxa soo gaaray isagoo kaashanaya wasaaradda caafimaadka in dadka wixii qaba iyo waxay ku soo jiraan ma garanayna in dadka looga gurmado si dadka iyo dadka loo ilaaliyo dadka maanta halkan joogaana dad xanuunsanayna way ku jiraan سجل عقد من الجوة وسالد عقد لك عشان طبعا من يحبها كسوق عالمي سيرة الجود يا ضد كمان كهذا حويان اللي نقطة وضد بكاء يضد ورسني يضد يحاول كتير أنت بس كتير جامع حسين جامع ضد تلفزيون كعالمي اس بي سي مقالة بورما